waliba geeka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay hadeerey wafuushal gadiisan oo ku socota hay'adda qaramada midoobay qaabilsan arrimo beero ee marka magaasha Laangaawi FAO waliba anu wafuudan hadhawaayay ku simaaga madaxweynaha in wasiirka beero iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi iyo xubno ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo golo wasiirada xildhibaanada waliba nasiibna ka dhawaayay garoonka caalamiga ee Shaadgud Airport iyo xubno kale oo ku socday hay'adda FAO waliba xarunta madaxtooyada dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya ee la hadeersi meelasay oo kudhiya kulan biliran oo lunku hadalo xaalado beero gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo sidii horumari lahaay marka kulanka dhamaysay waliba lan qabaday wafuudishal gadiisan munaasabad biin oo la ka dhawaayo taasoo ku dhigay hoolka qorsheynta magaalada Baydhabo waliba naqib galay xildhibaanada wasiirada ee ku tirsan dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya hogaamiye ku simaaga madaxweynaha ee wasiirka beero iyo waraabka dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqi munaasabadii waliba la ka bandhigay walqabadka wasaaradda beero iyo waraabka dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo suugaan la ka amaano walqabadka wasaaradda iyo kanaalada iyo kargilida gobolka Shabeellaha Hoose waliba markaasay ka sugnaayay kooxda fanaaniinta Janaawkay gabagabadii muddo kulanka dhamaatay waliba hadalay madaxda hay'adda FAO Masaliza oo ku hadalay waana shacabku qaadinta door muhiim ah oo qaadeen doorasho ka eedan horumarinta beero ee gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya isla markaasayna iyo sii wada doonana waana xooji doonaan dadaalada ka eedan taageerada beeraleyda ee ka nool gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya Minister of Agriculture and Irrigation and the other ministries for making this coordination meeting a very successful one. And we really appreciate and support the South State government by focusing on the importance of agriculture in the state. kusimaaga madaxweynaha ee wasiirka beero iyo waraabka dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya oo kulanka shirgudoomiyaha ee dhinishayna ku hadalay dhibaatooyinka xilligan haysta beeraleyda ka dhaqan gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya waan ku sheekay fatahaadada ka dhawadeen gobolka Shabeellaha Hoose xilli sanadeedkan guka la dhaafay xoolaha wasiirka kalluumaysiga beeraha dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka maanta ee ahaa hay'adaha partnerska la FAO maanta marti loo ahaa madaxa beeraha ee FAO masaragsaman iyo walaalkeen Cabdi oo isagana ka tirsan xafiiskaas beeraha oo runtii aan uga mahadcelinayo waxqabadka iyo shaqada ay la qabtaan wasaaradda beeraha maamulka koonfur galbeed waana qolada noo suuragelisay inaan 18 degmo ka kooban yahay marka laba degmo laga reebo gaarsiiyey abuurka iyo wuxuu ahaa in loo qoro wara in loo daaweeyo macnaha dalagga u soo baxa runtii aad aan uga mahadcelinayaa qaybtaas beeraha gaar ahaan aan uga mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa maanta partnerskii FAO oo ahaa injooriyada ka shaqeynaya maamulka koonfur galbeed oo maanta shir aan lahayn oo runtii si muddo uga soo qayb galay ayagana waxaan tixgelinaynaa ra'yigoodii iyo fikirkoodii wax wada shaqeynta sidii loo xoojin lahaana waa ka wada hadalnay runtii dhalinyaradaasi ayagana ka shaqeeya degmooyinka kala duwan ee maamulka runtii ayagana mahad gaar aan u jeedinaynaa waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo saaxiibkay wasiirka qorsheynta oo isaga noo suurageliyey mar kastaba xiriirka aan la leenahay hay'adaha dibadda inuu isaga mas'uul looga ahaado waxqabadkiisana runtii aan ku soo gaarnay heerka aan marayno isla markaana noo suurageliyaba shirarka caalamiga ah aan qabsanayno noo suurageliya marka isagana waa u mahadcelinayaa waxaan halkaa uga mahadcelinayaa wasiirada wax soo saarka aan wada nahay oo shirka maanta igala qayb galay ee ah wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasiirka kalluumaysiga iyo wasiirka xigeenka beeraha iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha iyo shaqaalaha u jooga FAO degmadan Baydhabo intaba aad aan u mahadcelinayaa waa mahadsantihiin haddana waxaan kusoo dhaweynayaa Mr. Laksaman oo ah madaxa beeraha ee hay'adda cuntada adduunka ee FAO gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba iyana boqolkiiba 9 dhul beereed iyo markaasay dadka ka nool yihiin badan yihiin beeraley iyo dad xoolo dhaqataa Cabdullaahi Maxamed Sheekh Cabdullaahi Afaani TV koonfur galbeed magaalada Baydhabo.